السلام عليكم دمان قرابتي يا صاحبتي iyo aan ku saaxiibnay warbaahinta social media alxamdulillah waxa ilaahay igu soo celiyay magaaladeedii iyo anoo nabad qaba hadee dad badan oo igala socday Facebook iyo meelaha social media haba waxay ogaayeen anigoo markii ugu horeysay aan dhig kana markii labaad laakiin markii ugu horeysay wadankii qoyay aan tagay oo aan qayb ka mid ah soo booqday 2014 kii baan martagay laakiin hadda wax kaga duwanay waxaan siiyay ahamiyad sidaan wax yaala qaarkood uga ogaan lahaa ama ha noqoto ummaddu say u nooshahay say u fakarayso ama ha noqoto xagga dhaqaalaha xagga ehelka xagga dadka xagga horumarka xagga waxbarashada oo aan siiyay waqti badan arrinta ku saabsan siyaasadda waqti ma siinin way yartaa intaan siyaasad la kulmo maba waa hal iyo laba weeyaan iyagan ahmiyad fiican maana siinin sababtoo ah taa waxaad moodaa siyaasadda waa laga dharagsan yahay dadka halkan jooga oo Edmonton Canada iyo Alberta jooga way ka dharagsan yihiin oo waxayba ka warqabaan siyaasadda xagga joogta in ka badan meesha hadda aan joogno oo nolosheeda ku xiran tahay la xiriirta baanu ka warqabnaa taasuna waa dhibaatada na haysatay ka mid inaanan ka warhaynin meesha hadda aan ku noolnahay dad yar baa hadda ka warhaya in uu doorasho ka jirto halkan iyo cidda u baahan inaynu taageerno iyo cidda aynu doonayno inaynu taageerin waliba meesha ugu muhiimsan oo ahayd magaalada iyo municipality-ga doorashadoodii baa soo socotay inkastoo federaalka hadda ka soo horeeyo 20 bisha ay noqonayso haddaba walaalayaal anigu kolleyba la mid maayo dadka kale oo iyagu doonaya inay isku soo aanbixiyaan inay social media soo galaan laakiin anigu hadda waxaan u arkaa dadkeennii inay u baahan yihiin inaynu iska wacyigelino aqoonteena kor u qaadno meelo badan oo ama halkan ha noqoto ama wadankii ha noqoto wadankii dhibaatada innaga aanan ogeyn saameyn aad u weyn bay nagu leedahay marka loo fiirsho nolosheena halkan ah oo Canada iyo Alberta iyo Edmonton ba siyaabo ka waliba ka weyn ee anagu aynaan maartay dareensanayn sababtoo ah innaga inta badan dhibteen waxay ka timaadaa iyo saameynteedu waxay ka timaadaa wadankii qof walba wuxuu la xiriiraa qof isaga u gaara oo si gaara laakiin halkan aan joogno dad aynu ka wareysano ma cid aynu ka wareysano gaar ma jirto maba mahmiyad ma saarno saasay taana saameynta ugu weyn halkan baa nagu leh oo booliiskan ilmiheenni maalin walba laynaya ama xiraya ama u sameynaya criminalka ama ha noqoto dadkeennii immigrationkan saameynta nagu laho maxaa la yiraahdaa isbaarada u dhigtay dadkeennii waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaynan ahmiyad siinin dhaqaalaheennii gabdhaheenni iyo banaanka lagu marka waxaan ka hadlayaa saameynta ugu weyn xagga nagu leh xagga waxay naga caawin kartaa waa isu baahan iyo kaliya maaha wax noo baahan innagu waa u baahanay sababtoo ah waxaad moodaa dhaqankii iyo diintii iyo ehelnimadii inay naga sii duusuulayso iska badaaba dhallinyaradeenniiba inaynaan maaragtay ku sii marka xagga inaynu ehel la yeelano oo xiriir la yeelanahay waxay wax weyn ka taraysaa halkan marka waxba yaanan hadda ku sii dheeraan inaan faahfaahinta aan rabay inaan ka baxsho saameynta ay nagu yeelanayso xagga iyo sababta ay noqonayso inaynu xagga ahmiyad siino si aynu halkan ahmiyad u siino iyo arrin waji ka duwan oo aan rabo inaga hadda ka bacdi aan isdhihi karo waa inaan ku aragnaa arrintaas sababtoo ah dadku haddii aysan xiriir la lahayn meeshii ay ka soo jeedeen halkan dadaalkooda iyo horumarkoodu waa liciifa example ma ay maxaliyaan example loo badan baa jira kaba soo qaad dadka wadankan loogu yimid maadaama dadkan lagala dagaalamay dhaqankoodii iyo ehelnimadooda iyo arrimahoodii waxay hoos u dhigtay oo ay dhibaato ku noqotay noloshooda sababtaasaana keentay in ay maaragtay ay la kulmaan waxyaalo aad iyo aad maaragtay wuxuu innaguna kama
sokaynin haddii aanan arrintaa wax ka qaban oo aynan dib ugu laaban oo dhallinyaradeenii iyo annaga laftigeenu aynan uga bixin mideeda kale saameyn bay kugu yeelanaysaa xagga haddaad tagtid xataa waxaa ku soo gelaysa niyad depressionkii baa kaa dhayaaraanaya waxa weeye saxaad helaysaa caafimaadkaaga u fiicanta waad ogtahay dadkan waddankan ugu nimid inta badan waxay ku sanadkii aliisi ku fekeraan inay qaataan maxaa la yidhahdaa waqti qaataan oo dalxiis ay aadaan waxayna aadaan meelaha isleeyihiin waxbay ka bedelaysaa dareenkaaga haddaba aniga kulleyba saameyn iyo dareenkayga wax weyn bay ka bedeshay aanan marka hore anigu aanan islahayn way ka bedelaysaa laakiin waa inaad adigu waqti gelisaa dadka inta badan waxay uga cararaan waddankii u aadan waxay isleeyihiin waxbaa lagu weydiisanaya yes waa lagu weydiisanaya laakiin arrinta laftigeeda arrintaas ku saabsan weydiisashadu haddee sidaad adigu u maaraysid bay ku xirnaanaysaa midda kaleetana dee sadaqa waa lagaaga baahan yahay marka laakiin waxay ku xirnaanaysaa oo anigu aan ra'yi ahaan leeyahay qofku meelsha uu tagayo waa inuu qof ka yaqaanaa taasi waxay wax weyn ka bedelaysaa sidaad u aragtid iyo aqoonta aad ka qaatid meesha aad timid aniga hadda for example markaan waagii 2014 aan tagay garowe iyo gaalkacyo labadaba waa tagay iyo bursaalax labadaba waa tagay labaduba saddexduba waagaas waxa weeyaan ahamiyad fiican ma ana siin dadna igalama tagin wax weeyaan waxba anigu baa maartay guriga iska tagay iyo meelaha soo booqanay markaan kasoo tagay wax xiisaa oo aan u lahaa ma jirin laakiin hadda way ka duwanaysaa sababtoo markaan wadankii tagay waxaan la kulmay dad ehelkay ah oo maartay aan halkan isku naqaanay galkacyo ha noqoto garowe ha noqoto hargeysa ha noqoto booraba ha noqoto oo iyadaas oo dhan waxaan la kulmay dad aqoon ilaah oo waxay kala barayay magaaladii oo ahmiyad maartay xiise ii gelisay magaaladii inaan maartay si aanan marka hore aan arkeen inaan u arkay marka walaalayaal waan salaamay dhamaantiin annaga hadda magashan leeyahay Edmonton waxaan ugu soo foolay laba doorasho midkii federaalka ah 20 September dhacaya oo very muhiim ah iyo mid ka sii muhiimsan oo aan rabno inaan aad uga qayb qaadano oo ah doorashadii magaalada iyo iskuulka maartay school board oo ah dadkii iskuulka noo qaabis ilmaheena wax barayay labaduba muhiim fiican bay noo leedahay oo ah dad aad iyo aad maartay xiiso leeba carray oo qayb Soomaali ay ku jirto marka waxaan halkan waqtiga soo socda aan ahmiyad iyo siinayna inaanu la wareysano dadka aan rabno inay maartay arrintaas maartay soo galaan sababtoo you have to know hadaadan taageerin dadka adiga waxyaalaha ugu weyn oo naqabsada waxa weeyaan inagu waxaynu rabno dadka rabno waa naqana laakiin dadku waxay naga rabaan ma naqaano waana adag tahay marka dadka waxay aad ka rabtay inay wax kaala qabtaan hadaadan ayagu waxay rabaan wax kaala qaban marka all the politicians ka hadda jooga waxay u baahan markan oo kala way marka ay ku baahan yihiin oo wixii hadhow aad ayagu heshiis wada gaari kartaan oo ay ka aqoonsanayaan dadka marka waa muhiim inaynu ogaan dad Soomaaliya oo inaga dadkeena baa cararaya u baahan in taageero la siiyo dad waxa jira inaga ajnabi ah wadanka nala wadaaga laakiin laga yaabaa interestigan inuu isku meel yahay waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan tahay wacyi inaan siino hadda iyo wixii ka dambeeya October 18keeda way waqtiga maartaan marka haddii aad dibadda jirtid oo aad dan ka leedahay ama aad الحجالات كله عدد كي هالكن شوجا وحن شعلان لاينا نقول بورستان إنه كقريب قاضنا سياسة يا دكان كي يودن كان لنا إنه نقريب كقاضنا وأنه دور وين كلي يلنا سببته ودن كان بحد النهوران وأنه الماء يجي وحنت يدلني أنت مركان وحيا وقتنا صوص عضو وحن شعلا إن لو داجو دتك حدا magaaladan ay jooga oo iyagu doonaya inay naga helaan taageerada inay noqoladinka ugu firfircoon inaan ka soo qaadano iyo dadka Soomaalida carar iyo labadooda inaan maartay in la wadaago oo aan maartay si aad macluumaad uga heshaan oo liis aad u ogtiin qofka imaansiiba maayarka oo ah magaalada oo dhan maxaa la yiraahdaa laga dooranayo laakiin city councilka waxa way goobo gaar ah baa laga dooranaya iyo school boardka labadaba
trustiga oo iskuuladan maamulayaasha iskuul marka haddee waxaan leeyahay dhammaantiin intii la soo xiriirtay oo ii soo ducaysay oo ra'yiga isiisoo ila kaftantay waxaan ku leeyahay intaanu waa mahadsantihiin intaanu la kulmi doono goorta dambe oo aan la wadaagi doono fartiin ama maxaa yidhahdaa tan oo kale ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu